وكما يحيى سنوار ninkii Israa'iil ka qoomaysay in ay xabsiga ka sii deyso maskaxdii ka dambeysay fashilka mukhaabaraadka Israa'iil iyo wiilka ugu saameynta badan xilligan Falastiiniyiinta dagaalka iska caabinta kala soo horjeeda gumaystaha 4 jeer tira ka badan ayaa xabsi daa'in lagu xukumay haddana waa la sii daayay xilliganna waa ninka Israa'iilka ku baadi goobaysay Israa'iil Netanyahu waxa uu hore u sheegay in Yahya Sinwar uu yahay meyd soconaya oo uu la jeedo ruuxa koobaad ee madaxiisa ay raadinayso Israa'iil isagoo ka jawaabaya Sinwar waxa uu yiri Netanyahu waxa uu hiifi doonaa maantii ay hooyadii dihatay waa jawaabtii Yahya Sinwar ugu goodiyay isaga oo ka jawaabaya hadaladii ra'iisul wasaaraha Yahuuda sanaj'al Netanyahu yal'an al-yawm alladhi waladathu fihi ummuhu warbixintan kooban waxa aan kugula wadaagayaa xog muhiim ah oo ku saabsan Yahya Sinwar miisaanka culus ee iska caabinta bishii Oktoobar ee ina weedaaratay ayaa waxa uu buuxsamay gugii 61aad ee noloshiisa waxa uu ku dhashay xerada qaxootiga ee Khan Yunis ee marinka Gaza ku taala sanadku markuu ahaa 1962 waalidkiisu waxa ay deganaan jireen deegaanka Casqalaan ka hor intii aan lagu dhawaaqin Israa'iil 1948 Khan Yunis ayuu ku qaatay waxbarashadiisa aasaasiga ah shahaadada digriga koobaad ee luqadda Carabiga ayuu ku diyaariyay jaamacadda Gaza ee Islaamiga ah waa wiil ku soo barbaaray gacanta Sheikh Ahmed Yaasiin wadaadkii aasaasay Xamaas ee Israa'iil ay ka ladi weyday ilaa iyo gadaalihii ay gantaal ku dhufato sanadkii 2004 waxa uu qayb ka noqday aasaaska ururka loo soo gaabiyo Majad munadamaat al-jihaad wa dacwa waxa lagu eedeeyay in uu maleegay dilka 2 askari oo Israa'iiliyiin ah iyo 4 Falastiiniyiin daba dhalifa sanadkii 1988 dhacdadaasi waxa uu ku mutaystay in uu gala xabsiyada Israa'iil noloshiisii xabsiga sanadkii 1988 Sinwar oo ku xidhan xabsiyada Israa'iil ayaa waxa 4 goor lagu xukumay xabsi madaxa kufri ah waa 426 sanadood laakiin 23 sanadood markii uu ku qaatay darbiyada xabsiyada Israa'iil ayaa gadaalihii waxa ay Israa'iil ku qasbanaatay in ay ku bedelato askari muddo dheer laga haystay oo loo oran jiray Gilad Shalit xabista la isdhaafsaday oo Sinwar ugu miisaan cusla waxa ay ka badnaayeen 1,000 qof oo Falastiiniyiin ah intii uu ku jiray xabsiyada Israa'iil Sinwar waxa uu si wacan u bartay luqadda Cibriga sida ay falanqeeyaashu sheegayaan ma jirto cid uga aqoon badan siyaasadda Israa'iil iyo sida ay warbaahinteedu u shaqeyso waa kan koobaad ee gorfayn kara ula jeedada wax kasta oo iclaamka Yahuudda uu baahiyo xabsiga kadib iyo hoggaanka garabka military Yahya Sinwar markii laga sii daayay xabsiyada Israa'iil ee uu ku laabtay Gaza waxa uu noqday hogaamiyaha garabka hubeysan ee iska caabinta ee la yiraahdo Ciisadiin al-Qassam sanadkii 2017 waxa loo doortay madaxa garabka siyaasiga isagoo oo ka shaqeeyay isku soo dhaweynta kooxaha Falastiiniyiinta ee Xamaas iyo Fatah inkastoo tallaabadaasi aanu ku guuleysan 2015 Mareykanku waxa uu ku daray liiska madow ee argagixisada caalamiga ah saameynta Sinwar sida ay qortay jariirada ka soo baxday Ingiriiska ee Economist la yiraahdo waa ninka ugu saameynta badan carrada reer Falastiin Sinwar waa ninka sameeyay shabakadda isgaarsiinta ee iska caabinta Israa'iil waxay tuhunsan tahay in ninkani uu yahay maskaxdii ka dambeysay weerarkii fajicisada ahaa ee duufaanta Aqsa loo bixiyay ee 7 bishii la soo dhaafay ay ku ekeysay Xamaas ciidamada gumaystaha weerarkaasi iyo dagaalka hadda Gaza ka socda waa galalka ay Israa'iil la xiriirinayso Yahya Sinwar galka isdhaafsiga maxaabiista iyo dejinta shuruudaha daalinaya madaxa Israa'iil waa kuwo ka soo fula wiilkan shaashadaha Yahuudda qabsaday maalmihii la soo dhaafay ugu dambeyntiina dhacdada la yaab kale ee saacadihii la soo dhaafay ay tabinayso warbaahinta Yahuuddu waa tan ay ku warameen maxaabiista Israa'iil ee Xamaas sii deysay waxay sheegeen in godadka dhulka hoostiisa ah ay kula kulmeen Yahya Sinwar oo cagihiisa ku talaabsanaya waxa uu maxaabiista kula hadlay afkooda hooyo ee Cibriga isagoo u laab qaboojinayna waxa uu ku wargeliyay in xaalad amaana ay ku jiraan mar haddii ay la joogaan Xamaas waxaase uu sheegay in dadkiisa Falastiiniyiintu ay ku sugan yihiin xaaladtaasi ka bedelan iyada oo habeen iyo dhalaar bambooyin lala dhacayo dhacdadan waxa tabiyay channelka 12 ee Israa'iil ay leedahay